madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa isku shaandhayn kooban ku sameeyay golaha wasiirada iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada Jubbaland. haddii aynu eegno xubnaha maanta markaasi lagu dhawaaqay liiskooda, wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo dib u dhiska Jubbaland ayaa loo magacaabay Mudane Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil. wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ayaa la geeyay Salebaan Maxamed Maxamuud oo horey u ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta, hanuuninta iyo dalxiiska dowladda Jubbaland. wasaaradda isgaarsiinta, boostada iyo tiknoolajiyadda ayaa loo magacaabay Mascuud Cabdullaahi Axmed oo ka mid noqonaya ama ka mid ah golaha cusub ee markaasi waqtigan kusoo biiray wasiirada Jubbaland. wasaaradda isgaarsiinta, boostada iyo tiknoolajiyadda ayuu noqonayaa Mascuud. sidoo kale wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa loo magacaabay Ibraahim Xasan Cabdi oo uu horey u hayay Cabdiwahaab Axmed Cusmaan. wasaaradda warfaafinta, dalxiiska iyo hanuuninta dadweynaha ayaa loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Mukhtaar oo horey u hayay Salebaan Maxamed Maxamuud. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland ayaa loo magacaabay Cabdirashiid Cabdiraxmaan Caamir, waxaana wasaaraddan horey u hayay Aweys oo markaasi ka mid ahaa wasiiradii lagu dhawaaqay 2 sano ka hor. wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ayaa loo magacaabay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud. wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ayaa sidoo kale loo magacaabay Axmed Xasan Cumar. wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa loo magacaabay Mudane Cabdiweli Xuseen Jaamac. sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeen lagu magacaabo Mahad Sheekh Cabdi. wasaaradda amniga gudaha oo horey aan u lahayn wasiir ku-xigeen waxaa loo magacaabay in uu waqtigan ka noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha Jubbaland Aadan Axmed Xaaji. waxaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada loo magacaabay inuu wasiir ku-xigeen ka noqdo Abshir Maxamed Cabdi. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa loo magacaabay Maxamed Cabdi Salaad. wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa waqtigan waxaa wasiir ku-xigeen ka noqonayo Aadan Xirsi Codjoog. sidoo kale wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka waxaa loo magacaabay in uu hadda wasiir ku-xigeen ka noqdo Bishaar Aadan Geedi. madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, kaas oo loo magacaabay Mudane Daahir Cali Xasan.